kooxda Umulqura waxay ka mid tahay kooxaha Soomaalida ka dhisan magaalada Nairobi. Umulqura waa kooxda ugu sareysa 12 kooxood ee Soomaaliya ka dhisan wadankan Kenya kuwaas oo ka ciyaar heerarka kala duwan ee horyaalkaasi. Garoonka Bangani ayay ku wajaheen kooxda Kemri ee ka dhisan xaafadda Nairobi West waxaana ay ka mid tahay kooxaha ugu adag horyaalka magaalada. kulankaas waxa uu soo daawasho tagay qaar ka mid ah macallimiinta Soomaalida ee ku nool wadankan sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa goob joog ahaa. TV-ga Astan TV iyo sida noo soo booqateen oo sportiska aad u horumarinaysaan sida sheegtay waa run aniga waxaan ahay macallin dalkan Kenya macallin ka soo noqday waxaana maanta soo wada booqanay teamkan Umulqura halkan ku ciyaaray maanta teamkan wuxuu ciyaarayaa county iyo sub county iyo regional hadda uu joogo regional marka teamka marka ugu horeysa wuxuu ka soo bilaabayaa sub county wuxuu imaanayaa county wuxuu imaanayaa regional soo marka teamkan hadda wuxuu joogaa regional sidaad u jeedin footballka waa dadka meesha iskugu keenay oo mideeyay qaab ahaan sportiska idinkoo astan ah oo aad Kenya nagu soo booqateen waan idinkaga mahad celinaynaa. الحمد لله رب العالمين مجيء أحمد نور اسمان محمد وايد حاهي توبراء يعني أنا كوخ كله ما أنتنا كوخ أنا داضو ما ده وحافظ السيلس كله يارنا وليج كي كجيران ريجنال نيروبي ريجنال حواي كوخ إلا هو صعب يعني إلا ما كيك صبر يعني إلا هذا development في عن كسر ما أنتنا ليه كرين ماشي شل يسيل بنوني جوي ما أنت سكون مالين واجه كوخ دن أو ليج عيار جرين ما أنتنا لوي تون كوخ ilaa 12 koox oo ka soo qayb galaan maanta liiga Kenya oo level kala duwan ah raggan ugu sareeyaan original ciyaaraan rag ka hooseeya jiraan oo county-ga dheelaan ilaa 3 koox kooxaha kale ee liiga hoose oo laga soo bilaabo sub county-ga ciyaaraan horta magacayga Cabdiraxmaan Cali Lilaa ani kooxaha Isli Nairobi Kenya ku nool ka mid ahay macallin oo shahaado ilaa si haystaay kooxda Umulqura maanta game-kooda soo booqday waxa way koox Isli hadda oo joogto Nairobi Kenya jooga oo league u sareeyo dheelaan regional league oo dheelaan ay kamid yihiin waana faraxsanahay maanta game-kooda inay dheelaan boos waa koox hadda oo mataqaanta Soomaalida dhan oo ku nool magaalada Isli oo matalays oo mataqaanta xagga bunooniga iyo horumarka mataqaanta dhalinyarada oo mataqaanta oo liigaas inay dheelaan mataqaanta oo ku faraxsanahay waayay kooxdan waxay tahay kooxda ugu sareyso Soomaalida rajo nooc ayaad ka qabtaan inay gaarto ilaa iyo Kenyan Premier League inay ciyaarto ama Super League ugu sareeyo wadanka Kenya horta league Kenya horta liigaas level badan jirto Premier League jirto NSL Division 1 Division 2 marka kuwan waxay dhinaa regionalka waa kooxdan hadii support fiican helaan oo for almost 2 years 3 years waxa laga yaabaa inay mataqaanta ila championship mataqaanta NSL-ka waa NSL-ka waxay ka hooseysaa Premier League inay dheel karaan laakiin support la'aan waa difficult because anaga hadda amal ani kooxana waa kooxa la u shaqeeya kooxdaasna oo academy league u hooseysan waa dheelnaa kuwan waxay naga horayaan laba league bisana naga horayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed siliidan mataqaanta koox badan ay jiraan oo kuwan Umulqura maanta kooxda hadda hol sarsi league u sarso dheelayaan laakiin support la'aan waa difficult ku noqonaysa in ilmaha mataqaanta heer sare gaaraan bismillaah qosle horta aad u maasanta maanta inaan ku kulno wadanka Kenya caasimadeeda Nairobi alxamdulillah horta waa ku faraxsanahay maanta inaan meeshan waraysi u qaadin meeshan waxaan soo booqanay maxay tahay kooxda Soomaalida oo walaalaheen oo lagu magacaabo Umulqura oo ka ciyaarta heerka oo county-ga wadankan ciyaartooy badan ciyaarto oo fursado badan ka helaan oo haddaba u jeeda ciyaartooy Soomaali oo wax dhan wada ciyaarayo ajaanib kuma jirto marka anagana maro waqti walba saas u imaanaa waanu ku faraxsanahay in ay imaano aan fiirsano waanu ku taageernaa mar walbana waan dhiirigelinaa ciyaartooyda maamulka kooxda Umulqura ayaa ka dalbaday xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo ganacsatada ku nool wadankan inay garab siiyaan sidoo kale tan waxay ku baaqeen in fursad loo siiyo matalaadda xulka qaranka ee Soomaaliya waxaan ka mid ahay maamulka kooxda Umulqura kooxdan waa koox qadiimi ah oo taariikhiyan ku leh wadanka Kenya oo sanado 20 sano ilaa hadda 22 sano intaas ciyaarisay xaafadda Isli
sidii loo sheegay kooxo badan baan ka soo qayb galnay waxaan horseed u nahay kubadda cagta Soomaalida ee Kenya waxaan noqonay kooxdii ugu horeysay originalada Kenya ka ciyaara maanta anaga maaragtay ugu weyn oo ugu ciyaarna divisionada maanta Kenya divisionada ugu fiican heerkan gaarnay waxaan u maleynayaa koox kale oo Soomaaliya maanta la gaartay ma jirto waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macallimiinta xulka qaranka Soomaalida iyo guddiga Soomaaliyeed oo maanta soo booqday oo u yimaadeen inay ciyaaraheena daawadaan aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa TV-ga Astaan oo mar walba maaragtay gacan qabta oo gacan taageera oo maaragtay ciyaaraheena xiiseeya asna inta ka bacdi laakiin waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo maamulka Soomaalida kubadda cagta iyo maamulada iyo Isli business community iyo dadkan barnaamijka xiiseeya guddigood in dhalinyaradan maaragtay la gacan qabto ogaa raggan levelkooda hadda aad u sareeyaa oo level kale gaareen levelkana level maaragtay hadda dhalinyaro ka sareeyo waayo oo gacan qabasho weyn u baahan ciyaartoy badan baa jirta oo kooxa badan oo Kenya kamid ay maaragtay under 20 gooda soo codsadeen waxaan ku noolahay wadankan Kenya gaar ahaan Isli waxaan ku jiraa guddiga Team Umulqura general ahaan hadda u hadlana waxaan ahay nin sportska Isli magac ku leh oo marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa inaan xoogaa sharaxo team ahaan Umulqura waxaan nahnay anaga dhalinyaro badan waxaan leenahay 4 category waxaan ciyaarnaa 2 team oo liiga ah Kenya county iyo regional waxaan bilownay inaan ciyaarno 2 sano ka hor iyo sanadkan hadda socdo 2 sano sub county ka bilowna waa soo qaadnay county aan dheelnay haddana waa qaadnay waxaan aadnay regional hadda regional aan ciyaarnaa situation kan uu isbedelay oo marka level kora aadidba level way kugu sii adkaanay shaqada aad qabanaysid marka shaqadii hadda way inkastoo ay nagu adag tahay sidaas kale anaga sidaas ay tahay dhalinyaro isxil qaantaan nahanay waxaan anaga iskala dhacdhacno sidaas ay tahay footballka Isli general hadii loo hadlo qaranka waxa la keenaa dhalinyaro badan oo qurbaha ka dheesho anaga laftirkan qurbihii baan ka mid nahnay waa u baahnaanay hadii xiriirka Soomaaliya kubadda cagta la dhaho gacanta ay ka geysanayaan meelahaas kale waxa u baahan ilmahan Soomaaliya ka soo qaxeen oo qaxootiga u badan oo Soomaalida ah oo handana aan dibadahaas iyo waxba haysan oo meeshan joogan oo banoonigaas u soo jeedaan nin walba isleeyahay waxba marbay wadankaadi horumar samayn doona oo wax ka qabsan doonta nin walba saas u soo jeeda kubadda saas u ciirsanaa dad badan oo macallimiin coach noqon karaan oo joogan meeshan Jamaal Xaashi Tuuri oo ay isku duwaa xulka qaranka Soomaaliya ayaa ku amaanay maamulka kooxda in dhabar adeeg u muujiyeen heerarka ay soo gaartay kooxda Soomaalida ee maanta waxaan joognaa dalka Kenya caasimadda Nairobi garoon kamida waxaan u joognaa inaan dhiirigelino koox Umulqura oo ka dhisan magaaladan Isli oo dheesha regional league anaga xiriir ahaan waxaan u soo daawasho tagnay ciyaartan ahayd inaan dhiirigelino kooxdan ciyaartoy badan oo Soomaaliya ayaa joogta dalka Kenya iyo macallimiin badan marka waxaan rabnaa fursadda ciyaartoyda qaranka ciyaartoyda hadii laga helo Nairobi aan fursadda siino macallin u soo dirno macallinkaasna uu ka xulo ciyaartoyda ugu fiican annagu ujeedadana waxay tahay meel walba oo qofka Soomaaliga uu joogo in fursadda la siiyo fursadaasna uu uga faa'iideysto qarankiisa inuu guulo u keeno kooxda Soomaalida ee Umulqura ayaa hal eber kaga adkaatay kooxda Kembe kulan ka tirsanaa horyaalka magaalada Nairobi Cabdullaahi Xasan Cilmi Astaan Sports garoonka Bangani